السلام عليكم دمان umada Soomaaliyeed meel kasto joogtiin waan salaamaya waa walaashin hodan badbaado channelkuna waa hodan badbaado channel soo dhawaada asxaabta nagu cusub waxaan idin leeyahay soo dhawaada ku hore noola joogan waxaan leeyahay mahadsanidin kuwa soo socdana waxaan idin leeyahay qalbi furan iyo sacab furan ku soo dhawaada jiro jooga insha Allah waan idin ka raali gelinayaa bariyahan inaan idin ka maqnaa oo mashquulay arrimo kale ay isaga xirxirna oo kala furdaaminay ilaahay ha noo saqiro muraadkayga muraad muslim baa Allah sahlo wadiga raali ahaanaysan aad baan idin kaga raali gelinayaa insha Allah ma jecli marnaba inaan idin ka maqnaado caawa waxaan soo fariistay oon rabaa inaan idin la wadaago barnaamijkii aan maalin dhaweed idin soo geliyay ee ogeysiinta ahaa ka warbixi waayahaga nololeed qaybtiisii ugu horeysay ama qisadii ugu horeysay inaan idin soo gudbiyo caawa ayaan jeclaystay inaan idin duubo xilliga idin soo gaari doonta la yaclam qisadan waxay qosaysaa gabar Soomaaliyeed iyo reerkeeda gaar ahaan waalidiinteeda runtii waa qiso aad u xanuun badan كل ويجرا قصوين كحنون بدن لكن قف ولي بنتي ساقبته وفكر إيه مروقة إيه فرحات أنت بجلس مركا وان إذن صوبان دقيا إذن كانوا حنجعلان لها عد الله العدي دانينيسة سيدانا قلين لوغو سوقت بيبرامج كودا إناد واتساب كسور رعدين هالكا واتساب قاد كسو درتين بحي warbixin wad soo qorta xitaa WhatsApp qada digala soo xiriirtiin waan idin sheegay qaabka soo qoraysan iyo waxba insha Allah anoo bilaabo qisadan gabar walaasheeya oo Soomaaliyeed ay qosaysaa waxayna iga codsatay inaanan magaceeda sheegin waalidiinteeda iyo meeshay degan yihiin inaanan marnaba sheegin laakiin قصيدة عن شو قد بيو ولا هينا إحنا لو ذاقان وندعيان إن شاء الله قبل قصة قصته قصة وحكي بالله ونسى قبل هويدت واحد تيرو هويدي وحي أهيد هبرة أمر رجع سيدة التقانين أو أيدي وحي جيريو تبي تيرو هويدي والله بس أنا جشت hooyaday nolol noocay doontaba ha ahaatee waxay ku soo qortay bay tiri nolol aad u adag ay u mutaysatay hooyo la'aantii hooyaday markay weynaatay bay tiri ay dhowr iyo 10 jir ahayd bay tiri qaangaarkeeda madaxa soo qaadaysayba waxa lagu daray bay tiri awoogay aabahay adeerkii ah ayaa lagu daray bay tiri haddii lagu darana dhowr ciyaala ayay u dhashay dhowr ciyaala markay u dhashay oogay hooyada intii la doono ayuu ka weynaabay tiri u geeriyooday tiisiba timid Allah yarxamo markuu geeriyooday kadib bay tiri waajibkii markay gudatay hooyaday kadib ayay reerkayga waxay go'aan ku gaareen bay tiri in hooyaday la dumaalo si ilmaha bayraha aysan u noqon dad reer kale iyo nin kalena aysan soo dhixgelin waxay tiri hooyaday waxay go'aan ku gaartay inaysan nin dambe oo da'a totally guursanin runtii dhimashadu way da iyo yaraan iyo weynan ma lahan laakiin hooyaday waxay go'aansatay bay tiri inaysan odo dambe naxdintii hore ay tahay oday dambe waayeela ma raba ay tiri go'aan baa la gaaray bay tiri inanta qisadan qosayso aabaheed ayaa halkaas soo galay oo waxay tiri aabahay oo markaa nin doobnimada xooga ku weynaaday ahaa guurka ka daahay ayaa la yiri bay tiri nin degan oo miskiinana ahaa ayaa la yiri bay tiri haddaba waa yahay hebel
ha loo guuri gabadha oo ha aaya dumaalo ya hooyaday waxa ka dhintay bay tiri awoogay aabahay adeerkii laxmiya ah aabahay baa aaya dumaalay bay tiri wad fahanteen soma aabahay markuu aaya dumaalay aabahay waxay tiri 5 dumar ah ayuu la dhashay bay tiri oo kaliya uu ku yahay wuxuuna ahaa nin la sugayo guurka uu guursan doono wuxuu ahaa bay tiri nin loo sii durbaantay guurkiisa agabkii arooskiisa iyo wax waliba la sii diyaariyay tiri eedooyinkay iyo ayeeydeeba ay sii diyaariyeen oo bilba shay meel dhigayeen nooc ka qurux badan yahay la diyaarinaya agab guurka hooyadeed iyo aabaheed isguursadeen waa kan gabadhan qisadeeda oo dhan jaanta isu dhaafiyay inkastoo wax walba qadar Allah yihiin waxay tiri ayeeyday iyo eedooyinkay markay maqleen bay tiri gabadhii dhowrka ciyaal haysatay ee adeer hebel ka geeriyooday ayaa wiilkeeni ay dumaalay tolka ayaana go'aan ku gaaray halkii aroos iyo duca laga sugay waxay tiri ayeeyday iyo eedooyinka geeri bay uga dhignay way baroor diiqayeen bay tiri u fiirsadaya way baroor diiqayeen bay tiri hooyaday waxay maqashay bay tiri arrinkii ayeeyday iyo eedooyinkii afka labadiisa yeereen bay tiri hooyadayna way maqashay bay tiri gabar iska miskiinada oo nolosheeda hore ciriiri ku soo kortay oo caruur agoon haysatana way ahayd aad bay hooyaday u carootay tiri go'aan bay meel ku xiratay bay tiri nab inkii doobka ahaana wuxuu siirada hadii ilaahay calafkaaga keenay haba sii fadhinina waxay tiri qadarka qornaa ilaahay meesha aanu iga beeray tiri hooyaday markan uurkayga ay yeelatay bay tiri ayay go'aan ku gaartay bay tiri inay aabahay iyadu kala dhamaadaan totaliba waxayna ku tiri bay tiri aabahay ilmaha maalinka dunida yimaado hadaan noolnay fartan ka saaraya wax kale oo ani adiga naga dhaxayn karana ma jiraan ku seexo kuna soo toos ku sii tasho ama hooyada u geyso ama cirka la aad ama ceel ku rid waa adiga qiyaarkaaga wax la tiriya taag ma leh dhowr bilood kadib waan anigu dhashay bay tiri haba dhalatay 7 bilood bay ku dhalatay dhicis ay dadku yiraahdeen 7 ku dhalay waa ilmo fiican oo nool laakiin de kuleyba way ka dhiman tahay 2 bilood baa ka dhiman iyo sugi waliba aniga hooyaday 7 ku dhalay bay ahayd Allah ya raxmo 7 ku dhalay baan ahaa bay tiri markay sida ay dhashay hooyaday aabahay way maro igu duubtay tiri la dhaqaaq dadkii ehelka ahaa ee waliba hooyo ehelkeeda ahaa ayaa codsaday bay tiri 3 bilood inay ahayso maadaama bilahayga koriimada ahaan wax ka dhiman yihiin ilma yarna aan ah baa la yiri tiri hooyaday 3 bilood nooji oo u buuxi bilihii ka dhinaa hooyaday dadkii bay mari weysay tiri way iska ka qaadatay laakiin bay tiri sida la ii xog waramay wax daryeela oon qabay ma jirin xaq Allah ka noolaa oo mooyaan runtii anigu hooyo ilmeeda sida u silcinaysa ma aaminsan laakiin adduunka wax walba waa la arkaa carada iyo cuqdiguna qofka nooc walba ka dhigaan xitaa naxariista dhan inuu ka guuro qofka ayaa dhici karta wadon qashadaba ka tago 3 bilood markay dhamaatay bay tiri
aabahay bay u yeertay tiri hooyaday waxay tiri kollay agteeda aniga daryeelka ma heli mayso laakiin dhimo weyday dhakabdhe yeena ka fakan anigoo de waxay tiri ilaahay xaalkayga ogyahay baa leeyahay intaan la ekaa iyo qaabkaan u eka aabahay baa hooyada ka codsaday bay tiri meel dheer bay degan yihiin reerkaygii anna gaari baan wadaa aabahay dara walba u ahaa bay tiri anna gaari baan wadaa ilmuhuna waa ilmo yar oo ilmo iscelin kara ma aha waxaan ka codsanayaa inaad ila qaado reerkayga igula sinto adna aan ku soo celiyo waayahay bay tiri aabahay iyo hooyaday bay tiri colaad kale ka dhaxaysa male hadalka la yiri ay hooyaday kaga dhigtay tiri laakiin aabahay iyo hooyaday wax dhiba ay isu geysteen oo ka dhaxaysa ma jirto hadalada qaar waxaad adigu iska leedahay laga yaabaa inay wax badan burburiyaan marka mar walba waxa wanaagsan hadal raxmad leh inuu ka soo baxo waxay tiri walay qaaday bay tiri goor habeenimaba iyadii gurigeeda lagu garaacay tiri koob fur ya ahlan wa sahlan iyo waa kuma hooyo waa anigi iyo inantaydii yareeda dhalatay ayayday waxay tiri waa maxay ilmaha intan leeyahay dadna maaha dugaagna maaha alxamdulillah bini aadan baan oo ilaahay karaameeyay laakiin yacni caynkaan u ekaa hadda iyo koobay eedaday iyo ayayday umul ila galeen bay tiri aabe iyo hooyadayna waxay go'aansadeen bay tiri in la kala tago laakiin wax waliba qadarka rabbi aabahaygii iyo hooyadaydii aniga dhexdooda iiga soo saaray bay tiri inay kala tagaan ilaahay muu qadarin bay tiri inay kala tagaan ilaa 9 ciyaar ayaa la isu dhalay bay tiri hooyada yar aniga markaa waxay tiri aabahay anigu curad baan u ahay laakiin hooyaday curaduma iyo caruur ba iga waaweyn caruurtii agoontahay waxay tiri hooyaday markay dhashay bay tiri kii aniga igu xigay bay dib ii soo raadisay tiri ayayday baa cara kula dhacdo waxay tiri ma ilmihii sidaan ogaa ahaa eed soo tuurtay ayaad hadda raadinaysaa ka jaqaaf xisaabta ku darsan iska soco taa ana dhalay adigu kuwa kala korso hooyaday waxay tiri halkii ciilka ka sii laba jibaartid waxaan joognaba waxay tiri waxaan ilmo iska shabacda iska haya noqdaba hooyaday markaan u tago waxay tiri anigu kuma dhalin naga tag bay tiri balaa ku dhasho kuma dhalin ayayday baan u tagahay tiri ayay maamadan aniga kuma dhalin ayay tiri iyo runta ii sheego hooyaday aaw ayayday waxay tiraabay tiri wallaahi iyada ku dhashay inaan naa kala ku dhalin hooyo adiga ay dhala markaaraan kuma dhalin hana ku riyoonin aan ku dhalay bay tiraabay tiri 12 sano markaan jiray bay tiri ayayday ilaahay baa ofsaday tiri tii alla u timid allah ya raxmo bay geeriyootay bay tiri intayna geeriyoon bay ayayday waxay la dardaarantay bay tiri eedadaydii ila korisay oo ku tiri bay tiri gabadha iyo hooyadeed waan ogahay total isma fahmayaan marnaba inaysan isfahmayn baan ogahay adaan kugu ogahay inantayda oo inta u dhiman inaad u dhameystirtid ayaan ka rabaa waxay tiri geeridii ayay geeriyootay bay tiri allah raxmo geeridii iyo gogasha ayay markii la laabay bay hooyaday tiri inantaydaan haysanay islaantan uga xishoonayay hadduu ilaahay dunida ka wado ka oofsaday teed ay noqotay
الله يرحمين انتيدان أنا كرسني eedadii waxay tiri intaydana la igala dardaarmay anaana korsanay muhiim hooyo waa diiday bay tiri hooyo haday diiday waa la yiri tiri farta laga saaray gabadheeda miiba ila tagtay tiri waxay ila dhaqantaa bay tiri hooyaday si aan loola dhaqmin xataa ilmo jidka laga soo helay waxay tiri hadal san kama helo waxay tiri hooysan ma helo waxay tiri hungurisan ma helo waxay tiri raxmada ilmuhu helayaan ma helo waxay tiri kuwa ila dhashay hooyaday ma ogolay tiri inay xanuunsadaan ama hadal kulul la yiraahdo aniguna waxay tiri xisaabta ugu ma jiro wax kasto ay isleedahay way ku gubanaysaa way ku xanuunsanaysaa bay hooyaday igu sameeysaa bay tiri waxaan aad u la yaabay runaantii aadna aniga ii muruga galiyay waxay tiri hal sano oon hooyaday la joogay ayaa waxay iiga dhignaaday tiri 10 sano heer waxaan gaaray tiri nolosha aan geeri ka doorbido markii dambe ayaan go'aan ku gaaray tiri iskaba dhimo eedadeedii macaanid waxay tiri ima dhaw meelan raadiya ma aqaan ayeeyadeedii baalkeedan ku jira Allah iga jeclaaday aabahay waa nin iska safareeyay waxaan ka darnaaday bay tiri ilmahu eedadii loo dhiibay aniga ka sii daranayd maalinkii dambe tiri sacba ka xanuunsaday tiri reeraha haduu ka xanuunsaday si iska baqtiyay bay tiri si la jiiday togii meesh biyo fariisiga ahaa la geeyay ayaan iska seexday bay tiri ana iska ag seexday si waraabaha saca cuni doono anigana ii cuno 7 cisho ayaan si ag jiifay bay tiri oo habeen oo dhan waxa xayawaan intii suu ka yimaadeen hadana iga tagayeen bay tiri ala dilaa dhinta absidu way ka guureysaa marka carada iyo karaahidu ka badato 7 cisho markaan ag jiifay bay tiri iska suuxeen miir beelay eeda hooyadayna si kastoo aniga iigu adagtay tiri waa hooyo inta way raadinaysa laakiin cidina may soo dhigan bay tiri inaan saca baqtiyay ag tagayoon ag jiifano naftayda aan bahal u dhiibay cidina kumay fakirin bay tiri maalinka dambe la iga ag helay bay tiri sici oo waa hore lagu kala baxay la iga ag helay bay tiri wala soo qaaday bay tiri xaafadii hooyaday baa la keenay canaantii dunida oo dhan ba hooyaday ku dhacday tiri adaa gabadhaada silciyay adaa naxariista ka gooyay adaa wax kasta ku sameeyay adaa cunugta iska baylihii hooyaday xitro waxa kuma diirtaba raxmad yaraba kuma soo gasho aad ayaan la yaabay runaantii waxay tiri muddo hal sano laga jooga bay tiri ayeeyday geerideedii ee sanadkii ii dhamaaday bay tiri ayaa waxa go'aan lagu gaaray tiri in guriga iyaga lagu qabto xuska ayeeyday haddii xuskii la qabanayo ehelkii iyo tolkii iyo eedadii iyo kulli waa la imaanaya eedadaydii macaaneed baa timid bay tiri hal sano kadib markaasaan waxaan noqday tiri ilmo hadda ilida laga furo hooyadii arkay ku salsalay bay tiri eedaday xaggana uma socdo dib dambana la ii arki maayo soo istaagay tiri dii eedaday la iga reebo ummadii oo dhan ay isugu ka soo baxday tiri jaqaaqdeydii Allah waxa la yiraahdaa eedadu arxan male eeda arxan male raxmad waa qofka Ilaahay ku galiyo xaguu kaaga yimid ma jirto waa qofka Ilaahay ku galiyo naxariista bal fiiri ilmaha yar wuxuu ka cararayaa hooyadii dhashay dib haysta dartii wuxuu cararayaa eedadii markii dambe waxa la yiri bay tiri cunugtani intay waalan lahayd ku dhifan lahayd ha iska raacday eedadeed
marka waa 16 jir 2 sano 3 sano kadib bay tiri iyo 1 sano iyo xoogaa kadib oo soo qaan gaaray bay tiri inaan aan soo dareemay ayaa nin la igu daray bay tiri tila waatan dambayse haddii nin la igu daray bay tiri ninkii aniga marnaba waa la igu kari waayay si carar soo carar baan noqday tiri urban yeeshay tiri ilaahay inaan buu isiiyay ilaahay baa iga oofsaday tiri way iga saqirtay sidan u soo cararay ninkii la igu kari waa la iga furay bay dhowr sano kadib ayaan ka soo tagay tiri halkii reerka iyagu ku noolaa oo waxaan soo aaday tiri magaalo kale oo isla wadankii magaaladii kada markaan iska joogay tiri ayaan dhowr sano baan xanuunsaday bay tiri xanuun meel alaala meel uu iga yimid aan garan waayay xanuunsaday bay tiri ilaa aan aakhir sariir ku soo aruuray tiri oo suuliga xitaa tagi waayay oon isgadin waayay oon istaagi waayay oon noqday tiri qof meel iska jeefa indhahana ka nuuxsado waalidkay baa la wargeliyay tiri eedadeedii macaaneed baa loo sheegay aabbahay bay u tagtay tiri eedaday sidoo aniga waxaan la yaabanahay sidoo qof ilmihiisa sida ugu kari karaa sidoo yacni ilmihiisa qof sidaa dhan isaga saari karaa waxaan aad ula yaabay weeyaan wallaahi waxay tiri aabbahay baa loo tagay waxa la yiri tiri inantaadi nafta kamay bixin kumana jirto waa sakaraad sariir bay saaranta halka aabbahay waxay tiri ka soo raaci lahaa eedaday ama ka soo gargaari lahaa lacag yar buu soo siiyay wuxuu yiri tiri anigu xamaal baan ku jiraa reer baan gaari u kaxeeyay hooyadeeda loo sheegay in raacday in raacaysa hooyaday baa loo sheegay tiri hooyaday tan may gelin bay tiri dhagana raadsada haday xanuunsanayso bay warkii ku soo goysay tiri eedaday iyo walaalkay eedaday dhashay tiri oon isku raasiyo isku guri ku soo kornay tiri eedadayna wada midna ay dhashay midna ay walaalkeed dhaloonte walaalo isla dhashaan isu ahayn way adkaysan korriimadu waa wax weyn oo qofka inuu ku dhalay ama kula dhashay kaliya ma ahan kalgacalku korriimadu qayb weyn bay ka tahay eedaday iyo way ishayn waayeen bay tiri walaalkay waxay tiri magaaladan jooga la iigu yimid 1 sano ayay eedaday iga gadinaysay tiri oo sida caruurta la ii maamulayay tiri way dhimanaysaa mooye way noolaanaysaa aan lagu fakirinay tiri hooyaday kama soo daba hadashay tiri maxaad la kulantay ma tira soo ma raadiso aabahayna kaba daran bay tiri reer gabarka xanuunsada iska daa inay ka maqan tahay xisaabta igumay darin bay tiri eedaday baa waxay tiri markaan soo miirsadan soo roonaaday waxaan ka codsanayaa inantaydii noloshaada inaad u tashato oodan hooyada iyo aabbaha midna ku tashanin maanta taa hadduu ilaahay kaa kiciyo kaa badbaadiy hooyay macaanay ha ku tashanin hooyada iyo aabbaha toona naftaada adigu u tasho waa laysoo kaxeeyay bay tiri anigio lafalafaa bay tiri lafalafo waxay tiri dayay Afrika caadiyada meesha la keen waxay tiri ilaa meel wax isbuunya la yidhi ama firaash yar la yidhi ama barkin yar la igu fariisay ma fariisan kareeto salkaygu dhulka ma qaban karto waa lafo halkaas la igu baaniyay bay tiri hooyaday ima tiri xagee laga qabtay hooyaday ima tiri hadda maxaa dareemay hooyaday ima tiri maxaan ku sameeyaa hooyaday ima tiri xataa hooyo ima tiraabay kalgacalka hooyanimo inantaydii ay saatay xataa maalin imay dhihin bay tiri anoo la joogo la ii keenay bay tiri xaafad reerihii isku meel degan yihiin
markaan caafimaada bay tiri Sacuudi Arabiya iska tagay bay tiri iska baxay qurbahaas iska aaday tira carabahaas haddaan carabahaas iska aaday dhididkii ugu horeeyay shaqaysta bay tiri hooyaday baan u soo diray eedaday macaana waan u soo dirsaday bay tiri waa ii eedda hooyay tiri aniga eedaday kaliya ma ahan eedda hooyay ii tahay ya waxay tiri ilaa waqtigaa hadda la taagan yahay waxay tiri dhowr iyo 30 jir ahay bay tiri hooyaday waxaan wali ka naawilaa bay tiri maalin un inay tira hooyo inantaydii hooyo maalin un mar un inay tira xitaa hadday isoo wacday tira hadalkeedu waxaas ma haysaa na ii soo dira dad hayso waa canaan iyo wax weydiin bay tiri laakiin laxaw ila abtina hooyaday waan ka sugaa bay tiri marmarka qaar markan hooyaday aniga isu fiirsan aan u fiirsaday tiri qaabka ila dhaqmayso waxaan israay tiri kuma dhalintan ay hooyo sheegayso ama daacad ka tahay isku dhalinba waxaan ka codsaanaa bay tiri hodanay walaalaha kugu xiran inay ii duceeyaan ilaahay qalbigayga ii qaboojiyo hooyadayna ilaahay ii soo jeediyo hooyadayna ilaahay ii soo jeediyo oo riyada aan naawilaya ilaahay isii inta dunida isla saarana riyadaas oo ah inay ila xabsato oo inanteedina ah gabadheedina ah ay dareensiiso haddaba adigu walaalka i daawanayay walaasha i daawanayay waalidka i daawanay maxay kula tahay maxaadse fikirkaaga nagu dhiilaad noo soo commentiga noogu reeb fikirkaaga waa noo muhiim Soomaalidu waa wada qiso dadku waa wada qiso cidii danaynaysa inaan sidan oo kale qisadeeda u soo gudbiyo WhatsApp ka soo raaca igu soo dira fariimihiin u soo duceeya gabadha dadka i daawado YouTube-kayga ku xiran bay ka mid tahay gabadha walaashay loo soo duceeyo in ilaahay riyadeeda u rumeeyo hooyadeed siday rabtay ilaahay uga dhigo oo hooyo macaan mar waliba way tahay ilaahay raxmadeeda uu siiyo u soo duceeya si share gareey barnaamijkan like-ta igu badiya si uu meel dheer u gaaro xaqiinana wax waliba oo subscribe iyo share gareyn iyo comment qurux badan haday tahay idinka naawilaya ana si gudbiya u soo duceeya gabadha walaasheeya inagoo dhan walaasheen ah waalidiintana ilaahay dambigooda iyo dambi waalidkood ha dhaaf waalidkeen raxmad iyo naxariisna waalidku mar walba wuu macaan yahay waalidku ma xuma marnaba haddana waalidka naxariis dhameystiran ilaahay inoo geliyo ilaahay inagana kuwii baariyaha naga dhigo inta waalidku baari noqon awlaad caasi noqoto waa dhibaato ilaahu annagana awlaad baariya naga dhig waalidka iyagana baari nooga dhig aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh